Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan saaxiibada ku xiran channelka iyo page-ka dhakhtarkaaga. Muuqaalkan waxaan sharaxaad kaga bixinayaa talaalka cudurka COVID-19 ee maanta soo gaaray waddankeena Soomaaliya iyo sidoo kale noocyada uu leeyahay talaalka COVID-19. Sidoo kale muuqaalkan waxaan idinku la wadaagayaa sida loo qaato iyo dhibaatooyinka uu keeno talaalka COVID-19. Sidaad wax badan ugu ogaatid talaalka COVID-19 dhammaysa muuqaalkan. marka hore waxaa la soo saaray vaksiino ama talaalo badan ee cudurka COVID-19 laakiin adduunyada waxay isla xaqiijiyeen ama waxay hubiyeen laba nooc ka mid ah. nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa Oxford AstraZeneca vaccine oo ah kan waddankeena maanta soo gaaray. nooca labaadna waxaa loo yaqaanaa Pfizer vaccine. marka labadaas nooc ee talaal ayaa adduunyada laga xaqiijiyay ilaa haddana la isticmaalaa. talaalka loo yaqaano Oxford AstraZeneca vaccine waxaa si wadajir ah iskaga kaashaday ama soo saaray jaamacadda Oxford oo ah jaamacadda ugu caansan adduunka iyo shirkadda Britishka ee dawooyinka soo saarto ee loo yaqaano AstraZeneca. marka jaamacaddaas iyo shirkaddaas ayaa iska kaashaday in ay soo saaraan talaalkan oo loogu magac daray Oxford AstraZeneca vaccine. talaalkan wuxuu maray dhammaan tillaabooyinka loogu baahnaa in talaal la marsiiyo si loo isticmaalo. waxaan wada ognahay markii vaccine la soo saaray ama talaal markii la soo saaray waxaa la mariyaa tillaabooyin badan. marka hore waxaa lagu tijaabiyaa nooc ka mid ah xayawaanada, kadib waxaa lagu tijaabiyaa dadyo isxilqaamay ama volunteer ah. markaas kadib ayaa bulshada loo keenaa. talaalkan aan hadda soo sheegnay wuxuu leysin ka haystaa wakaaladda dawooyinka Yurub ee loo soo gaabiyay EMA iyo ururka caafimaadka adduunka ee loo yaqaano WHO. marka EMA iyo WHO waxay leeyihiin talaalkan waa badbaado ka hortag u ah cudurka COVID-19 waxayna cadeeyeen in dadka lagu talaali karo talaalkan uusan wax dhibaato ah u lahayn. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee ayuu u samaysan yahay talaalkan, sideesu u shaqeeyaa? waxaa muhiim ah marka hore inaan isla fahanno mechanism-ka ama qaabka uu u shaqeynayo talaalkan. sidaan u fahanno qaabka uu u samaysan yahay talaalka waxaa muhiim ah inaan fahanno qaab dhismeedka viruska COVID-19. viruska corona waxaa ku dahaaran nooc ka mid ah borotiinada oo loo yaqaano spike protein oo ah waxa cascas ee ku dul wareegsan viruska. marka waxaan cascas ee ku wareegsan viruska COVID-19 waa waxa keenaya caabuqa. marka saynis yahanada sameynayay talaalkan waxay soo qaadeen spike proteinkaas ee ku wareegsan viruska COVID-19 dabadeed waxay ku dhejiyeen virus ka mid ah kuwa hergabka oo loo yaqaano adenovirus. marka viruskan loo yaqaano adenovirus ayaa lagu dul wareejiyay spike protein. viruskan marka wuxuu u ekaanayaa COVID-19 sidaasna ayuu ku noqonayaa talaal. marka sidaas loo diyaariyo ayaa qofka lagu darayaa talaalka. talaalka markuu jirka soo galo wuxuu abaarayaa unugyada maadaama COVID-19 uu caabuq ku keenayo unugyada jirka. caabuqan samaysanka ah ee loo yaqaano adenovirus wuxuu weerarayaa unugyada ama wuxuu tagayaa unugyada jirka wuxuuna la soo baxayaa spike proteinska aan hadda soo sheegaynay. markaas ayaa difaaca jirkeena falcelin sameynaya wuxuuna soo saarayaa antibodies oo ah difaaca jirka. waxaana la active gareynayaa ama laga shaqaysiinayaa nooc ka mid ah antibodieska oo loo yaqaano T cells oo ah qayb ka tirsan difaaca jirka. sidaasna ayuuna ku burburayaa viruska daciifka ah ee corona u ekaa maadaama uu difaaca jirkaaga uu bartay sida la iskaga difaaco COVID-19. guud ahaan talaalada markii talaal lagu sheegayo ama vaccine wax kale maahan waa in cudurkii oo waxyeelo lahayn jirkaada la geliyo. cudurkii wuxuu sameynayaa inuu isbaro antibodies ama difaaca jirkaaga. dan markii cudurkii uu jirkaaga soo weeraro waxaa iska difaacayo cudurkii jirkaaga lagu maday oo ah talaalkii. haddaba sidee loo qaataa talaalkan? talaalkan aan ku sheegnay COVID-19 vaccine wuxuu soo maraa laba phase ama waxaa loo qaataa talaalkan laba jeer waxaana loo dhaxaysiyaa muddo la eg 4 ilaa 12 isbuuc oo la micno ah markaad qaadatid dooska koowaad waxaa sugaysaa 12 isbuuc ama 3 bilood kadib ayaa qaadanaysaa dooska labaad. waxaana la sii karaa talaalkan oo qaadan karo sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO qof kasta oo ka weyn da'da 18 sano. sidaan hore soo sheegnay waxaa jira laba talaal ah oo loo isticmaalo caabuqa COVID-19. haddaba labadaas nooc ee talaalada aan soo sheegnay maxay ku kala duwan yihiin? nooca koowaad waxaan ku sheegnay Oxford AstraZeneca vaccine, nooca labaadna Pfizer vaccine. nooca koowaad ee loo yaqaano Oxford AstraZeneca vaccine
waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 62 ilaa boqolkiiba 90 inuu ka hortagi karo caabuqa COVID-19. halka nooca labaad ee loo yaqaano Pfizer vaccine waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 95 inuu ka hortagi karo caabuqa COVID-19. marka haddaan eegno awoodda ka hortagi karto caabuqa COVID-19 waxaa badan nooca loo yaqaano Pfizer vaccine oo waa boqolkiiba 95, laakiin waxaa laga doorbidayaa noocan loo yaqaano Oxford AstraZeneca vaccine oo ah kan dunida inteeda kale gaaray. sababta loogu doorbiday wax kale ma ahan, waa in heerkulka lagu keedi karo uu yahay midka caadiga ah ama waa normal temperature ayaa lagu ilaali karaa nooca loo yaqaano Oxford AstraZeneca vaccine. laakiin nooca loo yaqaano Pfizer vaccine wuxuu u baahan yahay in lagu keediyo xaddi ka badan -70 degrees centigrade oo ah xaddi aad u badan oo qabow ah. marka inta badan waxaa la doorbidaa oo adduunka loo qaybiyey noocan Soomaaliya la keenay oo loo yaqaano Oxford AstraZeneca vaccine. sababta loogu doorbidayna waa in lagu keedi karo heerkulka caadiga ah uusan u baahnayn wax frinjeer ah. laakiin nooca loo yaqaano Pfizer vaccine uu u baahan yahay -70 degrees centigrade oo ah xaddi aad u badan. waxaan filayaa in isla fahanay labada talaal waxay ku kala duwan yihiin iyo sababta ay Soomaaliya u doorbiday nooca loo yaqaano Oxford AstraZeneca vaccine. waxaan kusoo gabagabeynayaa nooca talaal ee la keenay Soomaaliya. talaalka Soomaaliya la keenay sidaan muuqaalka kusoo sheegay waa nooca loo yaqaano Oxford AstraZeneca vaccine. talaalkan wuxuu soo maray tijaabooyin badan, sidoo kale wuxuu soo maray machad ku yaal Hindiya oo hubin labaad ku sameeyay laguna farsameeyay. marka waxaa hadda laga bilaabay isticmaalkiisa dalka loo yaqaano Bangladesh, Canada iyo sidoo kale wadamada Khaliijka ama wadamada Carabeed. dadka ugu horeeya ayna waajib ku tahay inay qaataan talaalka waa shaqaalaha iyo xirfadlayaasha caafimaadka. aniga aragtideeda ka dhakhtar Cabdikariin ahaan talaalkan waan qaadan lahay, ummadda Soomaaliyeedna waan kula talin lahay inay qaataan talaalkan maadaama uu yahay talaal waxtar u leh ka hortagga COVID-19. adiga daawanaya muuqaalkan haddii aad hesho talaalkaas ma qaadan lahayd, qaybta commentiga ah igula soo wadaag aragtidaada. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkii koobnaay aan kaga hadlayay talaalka COVID-19. gaarsii fariintan ummadda Soomaaliyeed adiga oo mahadsan sidii ugu faa'iideystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.